Asalaamu calaykum waraxmatullah. Halkan waxaan maanta idinkugu soo gudbinayaa janaasada iyo fadliga ay leedahay, sida loo dugto iyo waxa lagu aqriyo afarta takbiirood. Janaasadu waa salaad lagu dugto qofka dhintay ama meydka marka la mayro, la karfano, lana udgiyo kadib. Haddaba inta aan u gudagelin faahfaahinta, sheer dheh muuqaalka, laga yaabay in uu janaasadaada ku dugto qof ka faa'iidaystay muuqaalkan, sidaasna waa alle kugu naxariisto. Ugu horeyn, salaada janaasadu waa fardu kifaaya, micnaha qaar ka mid ah muslimiinta haddii ay ku tukadaan meydka deegaankaasi yaala, inta kale waajibka wuu ka dhacayaa oo wax dembi ah looma qorayo. Laakiin haddii la waayo cid ama jameeco ku dukata meydkaas cudurdaar la'aan, way wada dambaabayaan dhammaantood. Fadliga ama ajirka aad ka helayso haddii aad ku dukato janaaso. Abi Hurayra waxaa laga wariyey in rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yiri, qofkii xaadira janaaso haddana ku tukada wuxuu leeyahay buur weyn oo ajar ah. Qofkii xaadira inta laga duugayana wuxuu leeyahay 2 buurood oo ajar ah. Bukhaari iyo Muslim. Waxaa sunno ah in imaamka uu istaago meydka madaxiisa haddii uu yahay rag, haddii ay dumar tahayna dhabarka ama dhexda ayuu ka istaagayaa. Sidoo kale waxaa sunno ah in uu imaamku ka hormaro ma'muumiinta, micnaha hortooda uu istaago waa haddii masjidka ama meesha lagu tukanayo uu waasic yahay. Haddii uu ahayna ma'muumiinta waxay istaagayaan imaamka dhankiisa midig iyo bidix. Waxaa sunno ah sidoo kale qofka tukanaya janaasada in uu gacmihiisa kor u qaado mar walba uu Allahu Akbar dhahayo, sida uu rasuulka sameeyey. Waxaa soo saaray Daaraqutni. intaas kadib takbiirta koowaad waxaa lagu aqriyaa suuratul Faatixa ama alxamdu, sida ay qof walba u taqaano. Takbiirta labaad waxaa lagu aqriyaa saliga nabiga, sida saliga lagu aqriyo taxiyaadka oo ah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هدي أتكابسة كلية اللهم صل على محمد ويكو بنانتهي. تكبير تسدحات وحالو دعيا ميتك وحاتن لهيسا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من القطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة ونجه من النار وقه عذاب القبر. رواه مسلم. الله أدن بداف أننا حريصة عافنا الله إسكن عفي وناجنا ماشا أودغيو ونواسع ماشا أوغليو kuna dhaq allow dembigiisa biyo, baraf iyo qabow, kana nadiif dembiyada sida looga nadiifiyo marada cad wasaqda, uguna bedel allow daartiis daar ka khayr badan, iyo ehelkiisa ehel ka khayr badan, iyo xaaskiisa xaas ka khayr badan. galina jannada kana badbaadi cadaabka qabriga iyo cadaabka naarta. haddii meydku uu yahay canug yar waxaad dhahaysaa Allahumma ij'alhu lana faratan wa salafan wa ajra. allow nooga yeel hormare mid noo saqiiray oo naga hormara iyo ajir. takbiirta afraad waxaad dhahaysaa Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. allow ajirkiisa hanaga hoojin, gadaashiisana hana fitnayn. dabeetana waad salaam naqsanaysaa. baraarujin yar oo aad u muhiim ah, marka meydka lagu tukanayo meelaha aan masjidka ahayn sida qubuurta, dadka intooda badan kabahooda ayay ku tukadaan iyagoon aqoon u lahayn siyaabaha loogu tukado kabaha. haddaba kabaha waa lagu dukan karaa, laakiin waa inaysan lahayn wasaq ama najaaso. kabaheena intooda badan wasaq ayay leeyihiin. sidaa darteed marka aan ku dukanayno janaasada meelo aan masjidka ahayn waxaa habboon in aan kabaha iska siibno ama aan iska bixino.